waxaa inoo soo socday siiradii nebiga sala allahu calayhi wasalam. maalintii shalay waxaynu soo qaadanay abtirsigii iyo nasabkii nebiga sala allahu calayhi wasalam. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhashay isaga oo agoon ah oo aabbe la-aan ah maalin isniin ah 12 cisho oo ay tagtay bisha rabiicil awwal ee sanadka maroodiga. wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalama ana dacwatu ibraahiima, aniga waxaan nahay dacwadii iyo ducadii nebi ibraahim ee la aqbalay. wa bushraa ciisa, nebi ciise bishaaradiisii uu qur-aanka uu igu bishaareeyeyne oo uu yidhi waxaa iman doono nebi magaciisu uu yahay axmed. hooyaday ayaa waxay ku riyootay markii aniga uurkayga ay lahayd in uu nuur ka soo baxay iyada jirkeeda, nuurkaas oo iftiimiyey qusuuru busra min ardi shaam, qasriyada waaweyn ee busra ku yaallo ee dhulka shaam iftiimiyey oo dhan ayay hooyaday rey ku aragtay ayuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. nebiga waxaa soo nuujisay xaliima assacdiya, ee gabadhaasi ayaa soo nuujisay. waxyaabo badan oo barako ahne waa ay aragtay intii uu hoyga kula noolaa. markii uu gaaray nebiga sala allahu calayhi wasalam 4 sano waxaa u yimid 2 malag ayaa ilaahay uu u soo diray. markaasay waxa ay ku sameeyeen camaliya ama operation ayay ku sameeyeen oo xabadkiisa ah, wayna dhaqeen, qalbigiisa ayay dhaqeen, halkiisa ayayna ku celiyeen. markii uu gaaray nebiga sala allahu calayhi wasalam 6 sano waxaa dhimatay hooyadiisa ayaa dhimatay meesha la yidhaahdo abwaa ay u dhexayso maka iyo madiina. kadibna waxaa kafaalad qaaday awoogiis cabdulmutalib. markii uu gaaray 8 sano nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa geeriyooday awoogiis cabdulmutalib, waxaana kafaalad qaaday oo kafaaladu ay ku wareegtay adeerkiis abu taalib. halkaas ayuu maantana inoo joogayaa casharkeena insha allahu tacaala. la soco casharkan casharka xigo.